وعن داوديال duqeymihii ugu badnaa iyo sidoo kale ururka al-shabaab oo mar kale dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysay in gacanteeda ay ku soo celiso sidoo kalena ay ka qabsato degmada caanka ah ee Ceelbuur ee ururka al-shabaab ay ku sugnaayeen muddo 10 sano ah qorshaha ay doonaysay dawladda federaalka Soomaaliya qaabka ay ugu saareyso degmada Ceelbuur iyo sidoo kale qorqor dhinaca qaybta uu ka qaadan karo in mar kale si nabad ah oo aanan dawladda federaalka Soomaaliya ay u wareegto ay doonaysay dagaalka xoogan ay doonaysay in mar kale ay kula wareegto Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga sida Wabxa iyo Galhareeri ayaan kula wadaagi doonaa ugu horeyn waad heli doontaa xogta iyo sidoo kale wararka xasaasiga ee ku sugan degmada Ceelbuur ee laga filayo in mar kale madaxweynaha Soomaaliya oo aad u daneynaya in Ceelbuur mar kale gacanta dawladda ay ku soo noqoto talo wuxuu ka damacsan yahay sidoo kalena Ceelbuur kaliya al-shabaab ma haystaan ee galgaduud qaybo badan oo kamid ah ururka al-shabaab haystaan hasaahate diirada ugu badan iyo xooga ay dawladda federaalka Soomaaliya haatan isku geynaysa inta aan la gaarin bisha May ayaan kula wadaagi doonaa ugu horeyn waxaan ka codsanayaa haddii channelka subscribe ku heen inaad subscribe saartid muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada kana mid noqo saaxiibada aan halkan ku saaxiibnay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar kale waxaan daawaday degmada Ceelbuur waxaa muddo 7 sano gaaraysa ka talinaya ururka al-shabaab iyadoo mar dhaxdaas ee 2024 ay la wareegeen dawladda saacada ay ku sugnaayeen muddo 7 bil gaaraysa halkaas oo ay markii dambana u faarijiyeen ururka al-shabaab habacsanaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo macawsleeda ka dagaalanta galgaduud ayaa soo kala dhaxgashay darteedna Ceelbuur ay mar kale hagaagi weysay in dib loogu noqdo sidoo kalena furintaasi la adkay Ceelbuur al-shabaab ayaa waxa ay tahay maxkamadda iyo sidoo kale goob muhiim ah gobolka galgaduud iyo magaalada kaliya ee gobolka galgaduud ah marka laga soo tago deegaan iyo tuulo ay tahay degmada ugu weyn ee Ceelbuur ee ururka al-shabaab gacantooda ku jirto gobolka galgaduud dawladda ayaa mar kale waxay qorsheynaysaa in Ceelbuur ay gacanteeda ku soo noqoto sidoo kale ururka al-shabaab laga farmaroojiyo iyadoo kaashanaysa ciidamada daraawiishta galmudug kuwa macawsleyda ee deegaanka ee xoogaga iyo sidoo kale ciidanka qaranka Soomaaliyeed hasaatee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qabto degmada Ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud sababtan waxa ay tahay in madaxweynaha uu doonayo 15 May inuu ka jeediyo khudbad weyn oo la wada sugayo sidoo kalena dhagaha caalamka iyo Soomaalida ay wada eegayaan sidoo kalena ay doonayaan wax madaxweynaha Soomaaliya u qabsoomay 3 sano oo sano soo dhaaftay una doonaya inuu qabto 4 sano ee u hadhay iyadoo dadka badankoodna ay sugayaan wax madaxweynaha uu ku faani doono sidoo kalena uu doonayay in khudbadaasi la wada sugayo ee 15 May ee ku beegan 3 sano guuradii jamhuuriyadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay xilligii uu mar kale ku guuleystay farmaajana uu xilka maalintaasi kala wareegay ee gacmaha uu ka ruqaaday hase ahaatee madaxweynaha oo taas ka duulaya ayaa mar kale waxa la rumaysan yahay inuu xooga saaraya in degmada Ceelbuur ay ka mid noqoto waxyaabada iyo qodobada oo in la soo istaago masraxa khudbadaasi weyn ee 15 May uu doonaya ay tahay in mar kale ay noqoto Ceelbuur goobaha laga xoreeyay hase ahaatee madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa doonaya in Ceelbuur uu ku qabto muddo gaaraysa 2 maalin iyo wax ka yar hase ahaatee uusan doonaynin in dawladda ay hubeyso mar kale ururka al-sunna al-jamaaca uu hogaamiyo Sheekh Shaakir taas oo Qorqor iyo sidoo kale Sheekh Shaakir al-sunna al-jamaaca aysan isku firfircoonay sidoo kale isku qabteen dagaal ba'an uu ka dhacay degmada Gurceel oo ururkaasi sunal jamaaca ay mudooyin xukumayeen Qorqor ayaa inta badan doonaynin in ururkaasi la hubeeyo hase ahaatee uu doonaya in kaliya ciidamada daraawiishta galmudug kuwa macawsleyda iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ku fulan yihiin la wareegista Ceelbuur taasina ay tahay in madaxweynaha kaliya u dhiirigeliyo sidoo kalena uu rasmi ah u shaaciyay in ay iyagana xoreeyaan sidoo kalena uusan hubeynin al-sunna al-jamaaca madaxweyne Qorqor ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in uusan doonaynin in uu yimaado musharax madaxweyne galmudug Liibaan Shuluq oo ku sugan degmada Cadale iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe uu kaliya doonaya in lagu ekaysiyo sidoo kalena uu joogo Liibaan Shuluq halkaas iyo gobolka Shabeellaha Dhexe Liibaan Shuluq oo musharax u taagan madaxtinimada maamulka galmudug ayaa mudooyinkii u dambeysay waxa uu ku sugnaa degmada Cadale aadan yabaal iyo Shabeellada Dhexe isagoo la socday sidoo kalena kula sugan furimaha dagaalka Odawa iyo sidoo kale Shuuto
hase ahaatee waxaas oo dhan waxa uu qorqor ka jecel yahay ayaa ah in meeshiisa uu ku sugnaado Liibaan Shuluq si galmudug ay nabad u noqoto haana loo carqaladeynin sidoo kalena ay musharaxiinta aysan isku hardamin dhinaca kale ceelbuur ayaa ah meelaha ugu muhiimsan ee gobolka Galguduud taas oo ay muddo 10 sano ay ururka al-shabaab ka taliyaan si kastaba ahaatee deegaanada gobolka Galguduud dhaca iyo degmooyinka sida Baxdo ayaa ururka al-shabaab dawladda waxa ay ku dhaxmareen dagaalo xoogan sidoo kalena dawladda ayaa inta badan ciidamada galmudug ayaa inta badan waxa ay xooga mudooyinkii ugu dambeeyay saarayeen sidoo kalena guluf colaayad ay ka hirgeliyeen gobolka Galguduud kuwaas oo ay doonayaan deegaanada ururka al-shabaab gacantooda ku jira in ay mar kale gacanta kala wareegaan sidoo kalena ay hogaamiso dagaalka daraawiishta maamulka Galmudug waa sida uu doonayay madaxweyne Qorqor hase ahaatee lama og madaxweynaha waxa uu damacsan yahay cid xoreyn doonta hase ahaatee madaxweynaha ayaa muhiimadiisa ugu weyn waxa ay tahay in mar kale ceelbuur gacanta dawladda ay soo gasho si 15 May ay ugu noqoto waxa kaliya uu ku faana kala sidoo kalena uu istaagi karo masraxa dadweynaha khudbadaasi sugaya hadii ciidamada si kastaba ahaatee gulufka codaadeed oo dhan oo dalka ka jira oo ururka al-shabaab mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kala kulmayeen duqeymo culus sidoo kale kuwa badan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ay ku nafwaayeen oo ciidamada ay sidoo kale horjoogayaal ah dawladda ayaa wali waxa ay wadaa gulufka codaadeed ee ururka al-shabaab doonaysay inay mar kale gacanta ugu soo celiso deegaanadaasi ku jira dawladda daawada waxaan ka codsanayaa hadii aad channelka subscribe ku weyn inuu subscribe saartiin muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada sidoo kalena ka mid noqo muuqaalkan iyo share garee si aad u gaaro saaxiibo sida adiga oo kale wanaagsan channelka subscribe saar mar kale oo kugu celinay aad iyo aad mahadsantahay